shirkadda Dahabshiil Group ayaa si weyn uga muuqatay bandhigii sideedaad ee carwooyinka dalka oo maanta Hargeysa ka furmay waxaana madashaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group oo kala ahaa madaxa suuqgeynta Dahabshiil Bank Guuleed Faarax iyo madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel Hibo Warsame iyo sidoo kale madaxa xawaaladda Sacad Warsame waxaan kaga faa'iideysanaynaa inaan ku soo bandhigno carwada sideedaad oo maanta Hargeysa ka qabsoontay ka Dahabshiil Bank ahaan sidii markii horeba la nooga bartay waxaan kaga qayb qaadanay muuqaal guud oo aan ku qayb qaadanay Dahabshiil Group gaar ahaan Dahabshiil Bank waxaan kaga qayb qaadanaa carwadan anagoo soo bulshada iyo macaamiisha u soo bandhigana adeega Mastercard-ka u furayno macaamiishii akoonada lahayd iyo kuwa aan akoonka lahayn akoono cusub naga furanaya mar labaad waxaan ku soo dhaweynaa dhammaan macaamiisha wadanka gudihiisa ku jira inaanu iskugu xidhi karno mobile bank-ooga anagoo isticmaalana dahabkooga iyo akoonkooga in qofku si sahal isagoo meheradiisa jooga isagoo gurigiisa jooga isagoo jooga meesh alaala meesh doona inuu ka adeegsado waxaan ahay marketing manager Somtel waxaan soo kordhinay waxa kamid ah student bundle-kan oo ardayda loogu talagalay boorkan yaga yaala boorkaasi wuxuu faahfaahinayaa qofku wuxuu heli karo isagoo wax yar oo $2 iyo badh ugu yar tahay bixinaya ayuu wii go'an hadli karaa internet isticmaali karaa SMS noo helaya waxa kale oo soo kordhinay anagu discount-yo iyo inaan ka jibino dadweynaha ka soo qayb galaya carwada ama shacab ka soo qayb galaya carwada qof waliba inuu helayo discount 5% wixii biilal ku taagan wixii MiFi iibsanaya oo dhan 5% baa laga rabiyay ilaa 50% ayaanu jabinay oo ah broadband-ki guryaha businessyadaada iyo ay ka mid tahay walibana VoIP-yadii cidii dibadda laga maqnaa familiyada dadkeena dibadda kula maqan yihiin dadkii kula soo xad lahaa 50% baan ka jabinay iyagana adeegyada maanta soo bandhigayna kuwaas ugu waaweyn adeegyo kale oo aanu haynaa waxaan dhammaan ugu bushaareynaa macaamiisha Dahabshiil guud ahaan gaar ahaan kuwa ka soo qayb galay carwada Somaliland Trade Fair carwada sideedaad in shirkadda Dahabshiil ay soo bandhigtay adeeg cusub oo la yiraahdo Dahabbay Portal oo online ah adeegaas oo macaamiisha gaar ahaan ganacsatada kuwa waaweyn iyo kuwa yarba ka caawinaya hawl maalmoodkooda gaar ahaan finance system-ka isaga oo u saamaxaya qofka ganacsadaha inuu 5-4-6 account inta kulba account haysta inuu hal meel ku maamusho isagoo online ku bixin karaya transactionska ama dahab ku dirin karaya ama biil ku bixin karaya dahaba sidoo kale xawaalad buu ku diri karaya wuxuu sidoo kale sameyn karaa bank to bank transfer buu dhex sameyn karaa wuxuu sidoo kale systemkan online-kii leeyahay inuu qofka shirkadda ama institution-ka ay u saamaxayso inuu ka caawiyo shaqaalaha payroll system-ka inuu hal meel ka bixiyo isagoo u baahnay inay cid kale ka caawiso Xamse Cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa.